وضد عدوة انتو ضبطان كوبا حاسدين تا يعني لايك تقولين برفلك صاحبتي ولا وحن ليه إلهي ما دليس هاي بكذب واحد شيء نوايا عدو كواس برفلك وأنا وصورة عشان تكون يقول جبت معايا لو حاسدين وعن جاني سيرة يا بقولي كنت كل فلوس فيها أيام صح علينا يا ديار كوا كعظام كيدقات كأن كجرو كنت كل برفلك صاحبتي ولا وحن ليه إلهي ما دليس هاي بكذب واحد شيء نوايا عدو كواس برفلك وأنا وصورة عشان تكون يقول جبت معايا لو حاسدين وعن جاني سيرة يا بقولي كنت كل فلوس من هنا أعلن إني تخرجت واسمي دكتور حققت الحلم كبرت والخوف اللي كان يقلقني هو أكثر حاجة تدفعني إني أنجح وانجح والزمن كان يسخر مني صار أكثر واحد يضبطني في هذا الحلم هم خسروا وأنا كسبت أنا حلمي اليوم أنا دكتورة وعلى راسي ورثنا نجيب كل خط أنا فرحي اليوم دكتورة وعارف ربي أكون بلزم طول العمر كم امتحانات ومصاعب ما تنام بس الأزمات بتخلي العزم أشد كم امتحانات ومصاعب ما تنام بس الأزمات بتخلي العزم أشد أنا عندي ثقة بالنفس ومنع باليأس أنا حلمي اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا خالقة مير البودافة عالمك كجسو جنتهين كسو دوادا بيج كان فيسبوك كله هاي ما أنت وحان رباينا كهالله برنامج ير أو جوابا أو كسابسن دتك علماء أوجفة وحان ربا برنامج كإنا كسي دير هذا مربو وقت ير أو كوبا أيان هستا waqtigeyga yarkaa ayaan jeclahay inaan kaga faa'iidaysto oo aan rabaa inaan ku soo qaato dadka social mediaha isticmaala khaasatan live-ka u soo gala ee u gafa culimada Soomaaliyeed marka waxaan rabaa in aad ila socotaan mar kale waan idinku soo dhaweynayaa channel keena ama page ka aan ku leeyahay Facebook ee Emras أبا كلنا أنت الفطورين أغير تسبح ninkaas maanta ka hadlaya لكن محمد إدريس ninkaas aan ka hadlaya maanta culimada caynaya إريتريان كا محمد إدريس منافق نمو يمجرم نمو ماشو كجاري هو يدرس ومجرتين وإريتريان لكن مجرتين كقاربا في عنو أسوى قوة عقدة ديسان بنتي عقدة اللبو محمد إدريس وحكومة وكسا قري حيست قادين وياها عصب نوك اللي لهدو أو شينا اختيار مدحد وياها قبل ninkaan u jeedaan magaciisu waa maxamed carab oo isxiijiya oo isdaaliya rafaad dhididka ka muuqdo asiga dhan ah u malayso in uusan soo qabaysanin ee culimada u gafaya maalin walba maalin heeyaha maxaa la lahaa hees ay soo qaadeen qoladan lagu magacaabo waayaha cusub ay soo saareen sheekh maxamed idriis waxaa la lahaa wuxuu ku soo qoray hees wiligay maanan daawan balse tan markii aan daawaday maxaa la dhahaa dislike aan saaray subxaanallah asiguna ma lahan page-ka kiisana ma ahan sheekha waa uu ka hadlay mar dambe uu ka hadlay oo wuxuu dhahay in uusan asigu lahayn page-kaas oo weliba uu ku caddeeyey in been abuur ay tahay balse ninkan culimada u gafaya isxiijinaya habaaraya dadka hataa live-ka daawanaya asiga respecti gareeye ee ku jira ee daawanaya ee caynaya wuxuu doona ku samaynaya balila dhegeysta ilaahi xalay qolada madaxtooyada haysato lacaga ay ku bixinayaan canshuurta hooyada laga qaaday oo adiga hooyada laga qaaday si shargareeya oo laga qaaday gabadha hooyadii isa gabadha laga qaado canshuurtii la bixiyay lacagta lagu bixinayo dislike maanta lagu iibsanayo
xageena nabad inoo haystaan ilaah baa idinku dhaarshay weligaa iyo allaha ma aragtay 22,000 heesee fiirsatay oo fiyuuska 22,000 uu yahay 37,000 ay tahay dislike fiiri youtube markaa gashid koodii hore waa inaad muuqaalka ku dhufataa waa qasab inaad muuqaalka ku dhufataa marka ninkan isxiijinaya maxaa la dhahaa maxamed carab la dhaho ummadda dhan u wada gafaaya ee caytamaya ee a u jeedaan rafaadka ka muuqda ma u malaysidba in nin gurigiisa dhex fadhiya ee maxaa la dhahaa si wanaagsan u hadlaya ee maxaa la dhahaa dadka jecel in uu qanciyo uma eka wuxuu u egyahay nin caytamaya wuxuu u egyahay nin wuxuu doono sheegaya wuxuu u egyahay nin aanan ka fiirsanayninba waxa uu ku hadlayo war culummada waxaa waaye in loo gefa ma ahan culimada ma ahan in loo geysto maxaa la dhahaa waxaanan macquul ahayn laga sheego laakiin ninkan culimada u gefaya culimadu wuxuu doona ka sheegaya qofkuu doona soo qaadaya barnaamijaa rabtaa inaad meeshan soo gudbiso dhalinyarada iyo ummadda soomaaliyeedba aad wax u sheegtid balse ma ahan barnaamijkaaga in aad isxiijiso oo barbaleem isgelisa oo maxaa la dhahaa aad barnaamijka si degan usoo diyaarso maxaa la dhahaa waxaa waaye qaab qurux badan oo adigu aad degan tahay oo aad kasoo taxadartay aad loo baahan yahay laakiin just welcome to Facebook live so you don't have any object then waa hadlaysaa keliya maanta dhan waa daldalmaysaa waxaad doontaa sheegaysaa waxaad doontaa ku hadlaysaa kuma xisaabsan wixii afkaaga kasoo baxaayo mis dhehaysid berito ma lagu qaban doonaa ma lagu qori doonaa waxaan halkee kaaga imaanayaan ismaba lihidba waxaa waaye waxaa ku jirtaa maxaa la dhahaa dagaal adaa isdagaalayaba nafsadaada dhididka kaa muuqda wasaqda kaa muuqata afkaaga candhuufta kasoo baxaysa dadka ku daawanaya xataa way kaa ashashaya ma fahamta ani maxamed carabaan haystaa qof kale ma haysta culimada waa warathatul anbiya culimada in loo gafo bataatanba ma aha marka waxaan leeyahay dadka culimada u gafaya ee beenta ka sheegaya dad waa jiraan culimo isku sheega oo hadda la magac baxeen qur'aaniyiin laakiin aan qur'aaniyiin lagu sheegi karin because qur'aanku waa aaminsan yahay axaadiistii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam nama aaminsana waxaa ka mid ah dad nairobi jooga oo la yaqaano oo axaadiista nebiga aaba soo qaadaninba marka culimada xaqa ka hadasha ee xaqiiqda ka hadasha waa la yaqaana in loo gefa ma ahan laga sheego waxaysan jirin marka ninkan caytamahde waxaa la yaabanahay kuwa fanaaniinta ah ee lacagaha la siiyey kuwa isdhaaya magac sameeya magaciina hoos u dhacay oo siina akhyaar usoo jawaabay inteed la haysataan imaad reero gacliin nimankan 6 bilooda u dhiman inteed rabtaan birinta inaad aadaan oo shoobiye ah kusoo jishaan marka idin waaraysa gabadha murursade ee hatta aysan gabadha ka wad hadalkuu dhaho hadalka ku xiga waa qabiil waxaa waaye qofka marka ummadda aad rabto inaad wax ka dhaadhiciso ama wanaag aad ka dhaadhiciso ma ahan in aad wixii qofka uu yahay iyo internal affairkiisa wixiisa inaad gasho bataatanba ma aha waxaa loo baahan yahay waxa qofka haddaad wax ka dhaadhicin karto si wanaagsan oo qurux badan oo macnaha lagugu jeclaysan karo inaad kaga dhaadhiciso laakiin haddii aad kaga dhaadhicisid qofka attack aad ku samaysid qabiilka uu yahay maanta madaxweynaha qolada uu yahay haddaa attackto madaxweynaha inaad agtaagtid oo shakhsiyadiisa aad wax ka sheegtid waa bataatan ba qalad ra-iisul wasaaraha shakhsiyadiisa inaad wax ka sheegtid bataatan waa qalad waxaa loo baahan yahay in aad xisbiga uu yahay aad abaarto xisbiga uu yahay aad wax ka sheegto xisbiga uu yahay aad indhaha la dhacdo maanta aniga haddaan cabdiraxmaan canshukuur mucaarad aan ku ahay ma ahan in aan asaga naftadiisa aan abaaro shakhsiyadiisa aan wax ka sheego aan ma ahan inaan xisbiga wadajir aan dhigaha ka garaaco oo xisbiga wadajir aan dhulka la jaraa laakiin ma ahan inaan qofka shakhsiyadiisa caayo laakiin ninkan muu kala socno gabadha ka warqabin in khayra iyo farmaajo isdagaalsiin xataa kama warqabto xataa ma oga in xisbigan nabad iyo nolosha lacaynaya inuu farmaajo leeyahay oo khayre uu gooni yahay ma ka warqabto maxay idin waale war caqliga
inuu shaqeeyo la fiiri farmaajo lix bilooda u dhiman shan bilood dhididka ka muuqda rafaadka problemka dhibaatada ma u malaynaysidba ninkaana muxuu usoo shaqo tegay aa is leedahay meelba usoo shaqo tegay maba isdhehaysid because dhididka ka muuqda iyo wasaqda war gurigaagaa ku jirtaa keligaagaa tahay daaqada ma furo weyse ya kuleel hadduu ku haya daaqada ma furo weyse xataa saanuu leeyahay gacantiisa wasaqda time waxaa lagu jiraa oo gacantaada iyo wejigaa kala ilaalinaysid oo xataa markaa wejigaaga biyimanaysid inaad rabtid gacmahaaga si fiican iskaga dhaqdid kabacdi wejigaaga aad rabtid inaad gaarsiisid biyaha laakiin ninkan nin lala yaabaya lix bilooda u dhiman shan bilooda u dhiman barnaamij been ah oo dislike ah waxay ka iibsadeen youtube fiiri dislike waa wax la gadan karo dislike waa wax la gadan karo waa wax normaal ah lacagta canshuurti ee muqdisho ee hooyooyinka muqdisho sii shaargareeya kulligii ku dhafta hooyooyinka muqdisho ay bixinayeen ilaah baa wuu isxiijinaya sii shaargareeya saan yeela maxaa ani haddii laba qof daawata naftirkeedi waa it's enough so wax meel galaya waay waxaan wax register garaysmaayo meel galaya waay because berito way gudbaysaa qofba qof kasii dambeeya sii gaarsiinaysaa laakiin ma ahan in aad isxiijiso idid iyo qurun iyo wasakh inay kaa baxayso oo maanta haddana aad aflagaado iyo waxaan loo joogin aad u geysato culimada horta taas aadaa ugu xumahay waana laga fiican yahay inaad ummadda saas aad ula dhaqanto maxamed carab waxaan leeyahay barnaamij waa lasoo diyaarsadaa daahir calisoogo oo maxaa la dhahaa ku taageersanba oo maxaa la dhahaa barnaamijkeedaada au kugu dhiirigeliya markuu asiga barnaamij soo diyaarinayo naftarkiisa si degana usoo diyaariyaa si qurux badana usoo diyaariyaa si wanaagsan oo uga hadlaa misaal si wanaagsan oo uga hadlaa laakiin adiga waxaa waaye dagaalaad ku jirtaa waxaa ku jirtaa problem adaa problemka isku abuuraya waa laga fiican yahay waxaas inaad maxaa la dhahaa mafahamti inaad maxaa la dhahaa aad samayso waxyaalo noocaasa marka maxamed carab waxaa leeyahay barnaamijkaa soo diyaarsanaysa barnaamij kuu qurux badan oo kuu diyaarsana ahaa life aa la iska soo galaa meediyaha ummadda soomaaliyeed waxa ay ka fahantay qalad aad u weyn ay ka fahantay meediyahan waxna inuu burburiyo ogow inuu waxna dhiso ogow laakiin maadaama dalkaaga uu burbursan yahay muddo 30 sano ah waxaa loo baahan yahay in aad ugu shaqayso dhinaca wanaagga in aad ugu shaqayso dhinaca maxaa la dhahaa quruxda badan in aad ugu shaqayso maxaa la dhahaa dhinaca isdhexgalka bulshada in aad ugu shaqayso maxaa la dhahaa dhinac walbo oo is leedahay wanaag uu ka imaanaya dadka masaakiinta ee maanta dalkeena ku dhibaataysan inaad video ka soo qaado baraha bulshada waa soo dhigi kartaa si ay dadkaasi nambaradooda markaa meesha kusoo qorto ee xaqiiqta inay baahan yihiin ama gaajoon yihiin si dadku wax uga helaan laakiin haddii aad 24 sax soo caytanto aad problem aad isku abuurto aad qaxar iyo dhibaato isgeliso soo waa laga fiican yahay akhi meeshan waa soo galay waqtigeyga reerka oo aan haysto waxaan jeclahay inaan ka faa'iideysto aan ummadda uga faa'iideeyo aan wax fiican usoo gudbiyo laakiin in aad barnaamijkaagaba ku bilaadid inaad culimada u gafto waa laga fiican yahay maxamed carab waxaa waaye qof wax kuu sheego waa la-daha uma leenaya aniga qof walaalkaa ahay waxaa fiican inaad maxaa la dhahaa barnaamijyo wanaagsan aa ka hadashid laakiin culimada inaad wax ka sheegto oo culimada aad maxaa la dhahaa aad cayso oo maxaa la dhahaa culimada la dhahaa aad dhibaato aad geliso oo culimada aad waxaa doonto ka sheegto waa laga fiican yahay culimadu ma ahan culimo lagu digan karo culimadu ma ahan culimo wixii doona laga sheegi karo sheekh maxamed idriis wuu caddeeyey inuusan kusoo qorin qoraalkaas barta waayaha cusub soo adig inaad soo qaadato oo sheekhi aad tiraahdo mujrim waaye oo sheekhi aad sheekh maxamuud jiis aacayso oo sheekh bashiir aacayso oo shuyuuqdii dhan aad u gafto waa laga fiican yahay waxaa lagugu ogaa shalay siyaasadda iyo barnaamijyo kale inaad dadka wax ka sheegto oo maxaa la dhahaa dadka dowladda ku jira inaad wax ka sheegtid oo dowladda dadka ku jira aacaysid oo aad waxaad doonto aad daadid soo taas maadaama aad ka soo gudubtay maanta waxaad u soo gudubtay inaad culimadii cayso saaxiib culimada waa tiirka keliya oo waddankeenu ku taagan yahay
culimada qof dhibaato ama barbaleema u geysan karto horta ma jirto laakiin ninka culimada u gafa ogow adna inaad meeshaas ku go'ayso oo timekaaganu meeshaas uu ku dhammaanayo midda kale waxaan leeyahay culimada Soomaaliyeed isku wada mid maaha culimada Soomaaliyeed waxaa ku jiro dad culimo sheegta laakiin aan culimo ahayn oo sida dadka hadda maalmahan soo ifbaxay sheeganaya qur'aaniyiinta dadka loo axaadiista nabiga aanan soo hadal qaadinba oo axaadiista nabiga aanan rumaysanayn soo haddaad quraanka rumaysan tahay nabiga aadan rumaysnayn hu ay kuma tahay adiga ya waxyaalahaas waxaa waaye in ayaga naftirkooda ay discuss ay sameeyaan laga wada hadlo nigan wuxuu ku aaminsan yahay axaadiista rasuulka ku diidan yahay ayaga naftirkooda soo bandhigaan laakiin barnaamijkayga wuxuu ku saabsan yahay kaliya maxamed carab oo culimada u gafay culimada sheekh maxamed idriis ku sheegay mujrim in uu yahay waxaa waaye waxaas waa wax laga xishoodo waaye in aad shayqi dhan aad ku sheegto mujrim oo aad ku tilmaamto in uu asiga daawaday hees sheekha goormuu hees daawaday waad aragtay in uu asaga soo cadaystay uu yiri maxaa la dhahaa waa layga been abuurayaa beejkaash anigu malihi haddii uu ku dhahay hadalkii culimada haddaadan rumaysanin adiga kaaga maanta yaa rumaysanaya ya kun qof oo soo gashayo ama aad ku caynayso like saara ama dhalaysa noqonaysid nin dhahayo goormee marka aad ummadda weji ka raadsanaysaa ya 150 kuna beejay like saarto dha 5 kun oo qof waxaa waaye waan dhiliidayaa because waxaa waaye ima support gareeyaan facebookan beejkayga waay so haddaan rabo inaan wax kusoo gudbiyo oo kusoo gudbin karaa waxaan na sheegi karaa wax yar oo ummadda anfaca oo wanaag ah oo ummadda igu jeclaan karta laakiin ummadda wax ay ku caaytami karto oo dhibaato dhexdooda geysanayso oo problem abuuraya haddii aan sameeyo so taas dhibaatay noqonaysaa marka wuxuu dhahay haddaadan beejkayga like saarin ama shaar ku qaban ma dhalaysi allah idinka dhigo subxaan allah intaasoo dhan waxaa u samaynaysaa in barnaamijkaaga la daawado barnaamijkaaga laba goorba safe u galaya safe hadduu galnane waxaa waa jiilba jiilka ka dambeeya ama dadba dad kasii dambeeya uu gaarsiinaya way daawan doonaan marka waxaa tahay iyo waxaadan maxaa la dhahaa iyo ba waxa qortidoo dhan meeshaasay ku qoran tahay marka aad baan ugu xumahay in maanta walaalkayna maxaa la dhahaa barnaamijyadaas ku caayo culimada Soomaaliyeed oo dhibaato u geysto oo maxaa la dhahaa waxaan loo joogin oo culimada kaga sheego midda culimada taas ugu baxaya midda kale maalin dhexdaas waxaa maxkamadda la soo taagay dad lagu sheegay musuqmaasuq in ay geysteen badankoodii dadka dhalinyarada ee musuqmaasuqa lagu soo eedeeyey waxaa ku jiray arday aniga aan iskuulka kolleejka Cusmaan bin Affaan liracaayat al-aytaam aan kasoo wada baxnay wax soo bartay jaamiciyiin ah haddii qofka uu musuqmaasuq ama wax lagu soo eedeeyo waxaa loo baahan yahay in aad maxkamadda si degdeg aad ku soo saartaan laakiin sharci qoraya ama qaanuun qoraya ma jiro in qofka uu xabsi ku jiro muddo 2 bilood iyo ka badan in aad ku haysataan meesha aadanna ka soo saarin wax loo baahan yahay dowladda marka waxaan leeyahay maxamuud buule waa aabaheen oo kale waa macalinkeeni waa ninkiina soo koriyey aniga intaan kuleejka ku jirnay waxbarashadeeni wax walba mas-uuliyaddu ay ka saarnayd maanta haddii aad maxkamad soo saarteen ama musuqmaasuq waa fiican tahay in musuqmaasuq qof lagu soo eedeeyo laga shakig baxo maxkamadda lagu kala baxo aad bay u roon tahay laakiin waxaa loo baahan yahay in dowladda federaalka ee Soomaaliya in ay sida ugu dhaqsiyaha badan dadka ay ku eedeynayso musuqmaasuqa ay u xiran in ay banaanka soo saaraan ay dadka ku cadeeyaan wixii haddaadan caddeyn u haynin muddada 2 bilood aad guriga ku haysateen
oo aad xabsiga ku haysateen waa inaad raaligelinteeda ama magdhowdeedana aad bixisaan soo dowladdu way fiican tahay in ay maanta ay heerka ay gaartay dad ee musuq maasuq kusoo qabanayso way fiican tahay laakiin musuq maasuq aad soo qabanaysaan dadka laga adag yahay ma soo qabanaysaan dadka waaweyn ee musuq maasuq ku jiray guryaha daaradaha dhistay ma la soo qabanayo miya yayarotiga hoose oo aan is leeyahay oo maxaa la dhahaa aan laga soo daba ordi karinaad soo qabanaysaan iska xariisa waxaa loo baahan yahay dowladda naftirkeeda inay garowsiyo yeelato ay soo maxkamadeyso xuquuq ay leeyihiin wixii loogu gardaran yahayne oo dadkan haddii musuq maasuq ku jiraan musuq maasuq lagu caddeeyo caddeemo la keeno banaanka lasoo dhigo wax walbana lagu kala hadlo haddii aysan lahaynna aad magdhowdeeda bixisaan aad maxaa la dhahaa aad sheegtaan waxa ay xaq u leeyihiin aad banaanka u saartaan ma ahan in dadka laiska haysto xabsiyada laiskaga haysto maxaa la dhahaa wixii doona la sameeyo soo qofka xuquuqoo leeyahay xuquuqdiisa waa inaad ka fakartaan xuquuqdiisa waa inaad maxaa la dhahaa meel saartaan ma ahan waxaad doontaan inaad iskaga dhaqaaqdaan marka dowladda iyo dadka cadaaladda waxaan leeyahay cadaaladdu ha shaqayso inkastoo cadaalad maanta dalku ay ku yar tahay laakiin cadaaladdu waxaa loo baahan yahay in ay shaqayso ha shaqayso cadaaladda marka barnaamijka inaan kusii dheeraado uguma aanan talagelin oo waxaan rabay keliya inaan ka hadlo maxamed carab oo u gafaya culimada soomaaliyeed ma ahan inaad culimada soomaaliyeed aad u gaftaa culimada soomaaliyeed haddaa u gaftid adna waa lagu gafayaa culimada soomaaliyeed haddaa u gaftid adna waa lagu gafayaa inkastoo soomaali maanta sheekooda iyo shariifkooda ay maanta ay dhiiq lugta kula jiraan laakiin ma aha inaad culimada u gaftaa culimada waa inaad qadarisaa culimada waa inaad madaxa saarataa culimada waa inaad warkooda maqashaa maanta markii aad rabto inaad nikaaxsato culima u ordaysaa maa siyaasi u ordid oo siyaasiga kugu soo nikaaxiye maanta haddii arrin diini ah taagan tahay waxaa u ordaysaa culimada arrinta diiniga maa siyaasiga weydiisi saaxiib dalkan waxaa waaye culima ay madax u saaran tahay inaad culimada sharafto ood qadariso allah kugu duwo marka barnaamijkayga halkaasaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo mid kale kulmi doono insha allah waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu